cabdi inaan isqarsano oo naan qof nool u sheegin anay iga timi aniga ahayd qofkii ku dagaalantay inaan cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaan qof nool u sheegin the man Usman lahayn this is going to happen because weligay waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kuma jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynay bahayd waxaan aaminsanahay oo maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in la adeegsaday waxaan aaminsanahay in madiida la igu sameeyay waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyay la igala wareegay waxa ii cadayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo haddii aan isleehay kayskan ku adkayso haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto Soomaali arrinkan qodobka ka gad waxaanan adduunka ilaahay umada tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido aamiin dhaha because of sixir cabsi sixir uu ka qabo inuu halka ugu guuray aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay cabdi waxaan noqotay wax kasta oo cabdi yiraahdo inaan fuliyo wax kasta oo yiraahdo samee inaan sameeyo wax kasta oo yiraahdo keen inaan dhiibo inaan noqday qof sariir ku ururay oo aan baxanuunsan oo dhakhtar joogo hargeysan tagaya meeshan ma doonayo inaan sii joogo laakiin adiga waxaan ka rabaa $5,000 inaad siiso ilaahu sooniya salaad hayga aqbalin haddii aan inaan ka qowlkiisa qalloocinayo $5,000 inaad gacantayga saarto waxaan tagayaa hargeysa baasaboorka Soomaaliya ayaan qaadanayaa waxaan u sii baxayaa Turkiga waan oran karayay in kamlaan baaba ku jirtay qodobkii hore wuxuu sanka igaga tolay qasab inaan ismaarsano muddo 3 jeer ayaan maalintii aan ku heshiinay inaan ismaarsano ka salon dib uga dhacay haddaanay taasi dhicin ilaahow casiisow casaawo jallow ummadda Soomaaliyeed inta idaawanaysa itaqaanay kayska la socoto wada nool waxa igu arkaan oo musiibo igu soo rog hadii aan inanka ka been sheegayo oo ina taasi dhicin qasab ayay noqotay inaan taana idhaahdo hay laakiin hal shay aan ka codsaday inaanay dadkuna maqlin way soo wacay waan qaban waay wuxuu ii soo qoray qoraal dheer ayuu ii soo qoray qoraalku wuxuu ku bilaabanayay adduunka inta la eg hadii lagu siiyo wax walba hadii gacanta laga saaro billions of dollars hadii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan laga gadaynin waa sharaf saacada laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshot baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahay tusma la wada nacib yahay hadaanan ka dhigin gaal baan hay أنا waxaan garan waayay marxaladda ilaa xadkaas wuxuu ku qoray detailkii oo dhan buu isoo qoray inuu hayo fiidiyoyo inuu hayo sawiro inuu hayo fiidiyoyo aanu diray inuu hayo kuwa uu duubay inuu hayo diis inuu hayo daa oo waliba detailkoodii aad yaabayso screenshots intuu ka soo qaadayna uu isoo raaciyay wuxuu yiri saacada laga bilaabana kule waxaan ku go'ay bariyootan walaalnimadeeni aawe jacaylkeeni aawe nolosheeni aawe family-nimadeeni aawe wuxuu yiri waxaad cadeynu haysato ud ku dood waxaanad cadeynu haysan ha isku daalin maalinta laga bilaabo waxaan noqday qof sanka inta fiinya laga galiyay sidii dibida saas loo hayo waxaan ku qasbanaaday amar kasto la soo rogo inaan fuliyo waxay noqotay arrin rakaata ah
oo mar walba oon wada hadallo mar walba oon af wax uun jiraanba amba sida uu rabo u waayaba ay noqoto waa banaanka taala waxaan ku walaal wax qabso maanta waxa la wixii aad qabsato ayaan ku siinayaa wax uun qabso si aad iiga go'do wuxuu yiri $21,000 oo u dhiganta sharcigaygii aad kansashay ayaan doonayaa waxaan ku yiri waayahay marxaba soo 21 maaha gacantan ka saariya cidii ku qaadi lahayd keen wuxuu yiri cidii qaadaysa hay ka timi dawaana marag lahaato ma $22,000 baan qarsoodi kugu siiyaa say u dhacaysaa aan cidla ka soo fadhiistaa cid lacagta u qaada iyo si uu wigaga qaado markuu waayay isagoo isagoo qoslay wuxuu yiri nama lacag inta leeg baan ka qaadi lahaa awal baaban ku dhimanay baaban ku ululiyay baaburkan ku raacaba nagsidan ku galiyay wuxuu bilaabay asxaabtaydii oo dhan one by one inuu u qabto dadku igu yaqaanay oo dhan inuu qof aan ka wada hadalay oo iduubay ka dhigo inuu qof maxaan ku iraahdaa uu isagu markuu wax ka waayaanba wixii waayo uu balooga uu tuuro uu ka dhigo gidi dadkii uu igu yaqaanay 100% wuxuu isku dayay inuu banaanka iga soo fadhiisiyo qof markaan la hadlayo waxa khasab ahayd inaan qofka aan la hadlayo screenshot ka qaado oon u diro sheekh iyo shariif dawmada video call kama aan wada hadli jirin magacoodi iyo numberkoodi intaan sawiro aan dhahdo dee tagafkana ku hadlaya hibil baladan hibil ayaa leeyahay qofkaas aan la hadlayo baxay maalin baas baan dhoofay hargeysan ka degay hargeys markaan ka degay airportka isaga iga soo qaaday aniga walaalkay hooyaday dhashay baa jooga iyo walaashay hooyaday dhashay iyo aabahay dhaleen labadaba ayaa wadanka jooga midkoodna ma ogeyn inaan wadanka imanayo hotel la yiraahdo Aramis Hotel oo ku yaala daanta airportka u dhowaan anigu markii hore booking ka samaystay hotelkii uu kansalay hotelkii markuu kansalay inaan baan idhi booking ka samee inankii baa sameeyay wuxuu iga noo kireeyay hotel la yiraahdo in hadiya muhamsa hadaayo aha saas ah ma soo heli magaciisa ayuu noo kireeyay halkii baan nimi meesha aanu deganay dadku marka ay macsi iyo munaafaqad iyo ilaahay ka cabsi la'aan u socdaan de halkan Ohio Columbus ayaaban daamaha Soomaalida aan ku dhiiran jiray macdala magaalada ugu dadka badan ee dadka inta la eeg ku nool yihiin aan isleeyahay more than 3 million baa ku nool inaan u tago anigu macsi iyo munaafaqad u tago meesha aan deganay waxaan soo booqatay walaashii hooyadii iyo aabihii dhaleen curadii hooyadii oo halka iigu timid waxa ii timid dumaashidii gabadhu guri ka deganayo in adeerkii qabay waxa ii timid gabadhu adeer u yahay oo walaal in adeerkii dhalay waxa ii yimi wiil abti u yahay oo gabadha walaashiisa dhashay oo wiil dhalinyara waxa ii yimi inamo oo qaar yiri habshil bay ka shaqeeyeen oo asxaab ahaayeen oo meesha joogay dhinacayga dadka iman jiray marka laga saaro isaga dhinaciisa dad ilaa 9 qof noqonaya ayaa meesha igu soo booqday haddaan xaraan ku jiro oo ay tahay inaan waxa dee la sheegay uu leeyahay dambi baan Ilaahay ka galay ay tahay intaas oo qof maxay marxaati ka noqonayaan oo buuqsan oo qaylinaya oo cayda ka dhacaysa oo buuq ka dhacaya ilaa iyo 6 iyo barkii waxaan ku gaarnay dacwad waa maalinta uu soo duubay codadka uu leeyahay marada kugu ulul waa maalinta uu soo duubay codka uu leeyahay CID-da u tago codad biga hayaade 6 iyo wax baaburka markaan galo speed ku dhaftay aan ku yiri cabdi war balukaadi dad magaaladuna waa saxmad bal ayar soco ayaa wuxuu yiri diintaada iyo ilaahaaga iyo maxaygaaga waxa ku sameey hadaad hadasho baabuur iyo booyad iyo darbi midkii inaga soo horbaxan baabuur ku qaadaya shiftan ku dadaalay aniga oo isle bal intaad isdejin karto isdeji aanan ogeyn wuxuu maagan yahay
waan soconay magaaladii baan ka baxnay waan soconay dhulka magaalada u dhow waa iska dhasar geedo badan male meeshii aan is idhi waa kayn ee ugu geedo badnayd markaan joog ag socono ayuu leexad u galay wadada baabuurka wax yar bay naga fogeyd wax badan oo sab miisiga waa la maqlayay baabuurta jidka maraysa laakiin meeshu kayn bay ahayd bartii markaan joogsanay waxaan tagnay isagoo oo bartaasaad aragteen ee seeska ah meel u yara dhow oo geed agtiisa ah ayaan fadhiistay waxaan isku dayay intaan kam iska dhigi karo inaan iska dhigo oo him baan afka iska furtay waan isciilkaan biyey waxaan arkay wixii isoo haystay oo dhan anoo og meeshaan imi inay maanta end of my life halkani tahay waxaan idhi waxaan ogaa oon hubay ayaa jira oonan horey kaagala hadlin oo maxay ah buu yidhi waxaan ogaa baan idhi malagaygii inaad tahay uu ilaahay ifka igu tusay malakul mawdkii nafta iga qaadi lahaa oo huyuumana inaad tahay ayaa maanta ii xaqiiqo weyn laakiin waxaan ku faraxsanahay adoona ceebayn aad aakhira iyo dirto taasaa la ii qaatay barta haddaad ila joogi lahaydeen waad ii garaabi lahaydeen 9 subaxnimo ayay ahayd marka fiidiyaha hore la duubay fiidiyaha waa la jarjaray fiidiyaha in baa laga jaray fiidiyaha maxay baa laga jaray 1 minute snapchat ku waa wada 1 minute isaga is jarjara hal daqiiqo markuu duubaba wuu isgooyaa bartaasan soo fadhiistay fiidiyahaas iga duubay cabdi isaga gacantiisa ku duubay labada telefoon midkuu ku duubay anigu ma garanay laakiin gacantiisa ku duubay because labada telefoon ba sidaan u soconay gacantu ku haystay intii hore oo dhan saan u barooranayay iyo bartii aan fadhiyay iyo sidaan u bariyootamayay hadaa duubi lahayd maanta dadku kana may eegeen ku ka daran baa ku jiri lahaa media labadii duhurnimo ayaan duubnay kalabiye kala badan oo qaar ay ku jirto oo qaar handadaad ku jirto oo qaar qosol ku jiro oo qaar geedihii kaymihii aan kaga sheekaynayno dhartii ku jirto oo isku oo badan waxa ka dambeysay maalintan sawirada galay maxaan ku radaa garbasaarta huwanahay buniga waxa ka dambeysay heesaha markaan isla qaadaynay heesahaad aragteen baan la duubay maalintaas kadib fankiisa waxa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala unba og ilaahay unba og geed gowracan ee dilan ee telefoonka ku jirta inaanan anigu kaligay ahayn inaan ugu yaraan 11 naagood oo caan ah ay halkaasi ku karaama seegayaan ay ku masiibada ku soo socota ilaahay subxaanahu wa tacaala haduna de ilaahay idin saqrin idinka wuxuu itusay 5 hablood oo isaga wax dhex mareen isagoo isleh macnaha amba emotionkeeda bedel ama isle kama sirsi ama waxban isle 5 hablood oo caana ayuu tusay habeenkii aan baxayeen buurama tagay waxay habeenka la xiray aroortii markii la soo daayay isagoo xidhnaa anigu waan baxay buurama tagay wuu ila soo hadlay wuxuu yiraahday xiray teleefankayga adaa masaxay horta wuxuu yiri may adaa xiray habeenkii waxaan ku dhaartay inaanan xidhin oo shaqo ku lahayn teleefanka in laga masaxay markaa ma oga isagu waaba laga haystay kaygana waa la haystay waxay kamid ah cabdi wuxuu leeyahay 3 telefoon oo 3daba aan u galay wuxuu leeyahay telefoonka oo booga ah ee uu leeyahay waa la iga masaxay wuxuu haystaa iPhone 11kii aan July diray wuxuu haystaa telefoon OnePlus ah oo anigu geeyay markaan hada tagay wuxuu haystay laptop aan anu halkan uga diray